dawladnimadu waxay suuro gelisay xasillooni iyo in shacabka Soomaaliyeed ee muslimka ihi si nabdoon ugu cibaadaystaan una soo camiraan masaajidda Ilaahay. Badalkeeda qawaariijta waxay goobihii cibaadada sida masaajidda iyo xarumihii barashada diinta Islaamka u rogeen burbur iyo bahalagaleen cabsi darteed looga haajiray. iyagoo marar masaajidda dhexdooda ku toogtay dad aan waxba galabsan oo cibaadaysanayay, kuwaasi oo qaarkood soomanaayeen. xitaa kitaabkii Ilaahay kama nabadgelin rasaasta qawaariijta. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. dawladda Soomaaliyeed ayaa u xil saaran dhowrista diinta, maalka, karaamada iyo gobonnimada shacabka Soomaaliyeed oo ah muslimiin jecel kuna dhaqma diintooda suuban. mar kasta oo ay xoogaysato dawladnimadu, waxaa la xoogaysanaya ammaanka iyo horumarka, waxayna shacabka Soomaaliyeed helayaan jawi nabdoon oo ay ku cibaadaystaan kuna camiraan masaajidda Eebbe.